afurkani waxa afur aad ay u soo qabanqaabiyeen bahda warbaahinta gobolka Awdal isla marhaantaana uu ka dambeeyay fikirkeeda uu lahaa Sadaam Gurey aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhammaanba intii ka qayb qaadatay iyo intii soo qabanqaabisay waxaan leeyahay Ilaahay ha idinka abaal mariyo kulankiisa insha Allah waan sii joogtayn doonaa insha Allah waxaan ku kulmi doonaa qodooyin fara badan ciyaaro fara badan iyo waa afur walaalnimo wada dhalasho iyo wada socod saaxiibtinimo iyo kaftan wadaag galabta halkan aan ku yeelanay fikirkeega iyo maamuuskeega iyo sharafteedana uu iska lahaa walaalka iyo Sadaam intii soo ajiibtay iyo intii timiday iyo intii ka qayb qaadatay qorshaha iyo fikirkeegaba waxaan u leenahay Allah ka abaal mariyo waxa halkan ku sugan warbaahintii gobolka Awdal alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan ku jirnaa Ramadaan dabeeqadeedii anagoo caaw galayna haduu Ilaahay dhaahdo 27kii bisha barakeysan ee Ramadaan waxa afur noo sameeyay walaalkeen photographer Sadaam Gurey oo aad iyo aad baan horta marka hore idin salaamaya inta muuqaalkana daawanaysa ee hadana arkaysaba halkan waxa isugu imarnay afur wada jir ah oo noo sameeyay saaxiibkeen wal suxufi Sadaam Gurey qawda kullay deesmaana lahayn qofna soo casuumi doono afur noo sameyn doona laakiin way dhacday walaalkiin waxaan leenahay Ilaahay ka abaal mariyo la afur Sadaam Gurey aad baad maasantay raaxina afur wanaagsan waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan bahda warbaahinta ee maanta halkan kaftan iyo ku wada qaadatay iyo calool furnaan waxaan halkan si gaar ah uga mahad celinaynaa Sadaam waxaanu sugu imanay aftur iyadoo inay ku kulmeen warbaahinta qaybeeda kala duwan ku yar wala ku weyn waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa Sadaam Gurey oo ah wariyaha noogu yar ama suuqaadaha noogu yar ee waqtigan oo aad iyo aad u fircoon waxaan uga mahadnaqayaa fikirka iyo talada iyo gacanta uu ka geystay afturka inta la inuu warbaahinta isugu timaado bahdii warbaahinta isku arki jirtay oo waqti shaqo iyo orod iyo xiin iyo maxaadaanay war la duubayo iyo kamarad la cararayo ya maanta waxay si nafisa oo wada fadhiya oo wada sheeka ugu kulmeen maxaadaanay buurta soo hoosteeda waxana halkaas ka dhacay maxaadaanay kafta fara badan walaaltinimo ku dheehan tahay waxaan aad ugu mahad celinayaa marka cid kasta oo kamid ah warbaahinta magaalada Boorama ka horgasha afturkan quruxda badan ee aad arkaysaan oo dhammaanba badi iskugu keenay warbaahintii gobolka ee awalba banaanka ka shaqeyn jirtay oo haddana maanta si wada jira halkaas ku afturatay marka waxaan leeyahay Sadaam Gurey Allah ka abaal mariyo marka maanta waxaan uga mahadnaqayaa warbaahinta gobolka Awdal waxaan u mahadnaqayaa warbaahinta gobolka Awdal sida ay ugu soo ajiibeen ay ugu soo marti qaaday ay ugu soo qayb galeen waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin wa salaamu calaykum.